بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا كان صلاة ديرهم نقدر إياه لما شعب وينها جمهورية سومالي لاند. عاوحن دوني إن رأي كوبان كإلى هذا حالة كسوة كورالي دالك جودهان شعب وينها جمهورية سومالي لاند وحنا معلومة هذا وحلو بهن يهاي إن دبت العضا يقول هذا تماضى حمل يد جنان لقى جوابه marka koowaad waan taasi u dirayaa dhammaan dadkii naga geeriyooday gobolka Sool maanta Ilaahay jannadii ka waraabiyo jannada Firdaws qoysaskoodii iyo eheladoodiina samir iyo iimaan ha ka siiyo wixii dhaawacmay waxa la hoga baraya inuu boogadhayo waxa kale soo jeedinayaa dhammaan wixii maxaabiis la qabtay in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan dhaqan iyo anshax islaamnimo iyo xeerarka caalamiga iyadoo la tixgelinayo walaalayaal waxa dhacay maanta arrin murgin karta wada jirkeena midnimadeena iyo walaalnimadeena taas darteed waxaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee xariirta ah meel kasta ay joogaan waxaan u soo jeedinayaa inay mid ahaadaan oo isku duubnaadaan oo ilaashadaan wada jirka qarankooda iyo ilaalinta haybadiisa maanta maaha maalintii la is-eedeynayay ee mucaarid iyo muxaafid loo kala baxayay maanta maaha maalintii faraha la isku fiiqayay ee la is-eedeynayay maanta maaha maalintii wax kasta oo dhaca dhaliil lagaga jawaabi jiray maanta shacabkeenu isku duubni iyo wada jir buu u baahan yahay warqadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland soo saartay galabta maaha jawaab ku filan dhibkii maanta dhacay ummadana xog siin karta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel wal ay joogaanba waxaan leeyahay waxa tiin xudunta iyo xooga qarankani ku fadhiyo ku jiro ee ku dhisan yahay laantiina aanu qaranku jiri lahayn waxa tihiin deyrka ummadani leedahay ciidan weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnidiina ismaqalkiina iyo kala dambeyntiina iyo iskaashiga dhexdiina ayaa hantida ugu weyn ee maanta shacabigani aad u hibayn kartaan taas baanan idin farayaa taas baanan idin kula dardaarmayaa waxaan idin ka rajaynayaa inaad ahaataan uliga diirkeed taasaan ku diirsanaynaa taasaanu shacabka Soomaaliland idinka filaya waxa aad uga xumahay dagaalka ka soo cusboonaaday ceelaf weyn waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ee wada degan halkaas ama degmada ceelaf weyn xabad joojin iyo nabadeyn degdeg ugu dambeyn maanta maadaama ay noo wada muuqato dhibta ay keentay wada tashilaanta ismaqalaanta isu joojilaanta waxaan ku baaqayaa in talo midnimo qaran la isugu yimaado si dalkan loo badbaadiyo dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh